xarunta waxaa la aasaasay oo 2013 wasaaradda xanaanada xoolaha aasaastay waxaa laga maalgeliyay mashruucii SDF phase 1 mar labaadna waxaa laga maalgeliyay mashruucii phase 2 xaruntan ujeedada loo aasaasay waxay ahayd inay xoolaha dhoofaya ee berbere aadaya inay lagu sii naaxiyo laguna sii baadho mar labaad waxaa ujeedada labaad loo aasaasay ahayd inay xilliga abaarta xoolahan ay ku badbaadaan xoolo dhaqatada lafteeda in lagu tababaro calaf tayo leh lagu soo saaro xaruntan 2021kii dadka loo furay 2022kii dadka loo furay 2022 waxaa ku badbaaday xoolo 1 milyan oo ari gaadhiya ilaa 2025 oo geela ilaa ku dhawaad lo iyo fardamarka isku daro ilaa 1,000 baayana ku badbaaday dad fara badan oo ilaa 5,000 oo qoys ka faa'iideystay xarunta sanadkan waxaa noo qabsoomay oo horeeya loo keenay mashruuc SDF loo keenay cagaf tii lagu qodayay dhulka lagu qodayay waxaanu banaynay dhul 25 hektar ayaanu banaynay oo ku beernay caws waxaanu kaydsanay sanadkan 5,500 oo buuro caws waanu kaydinay ilaa 15 lood oo balan waanu kaydinay waxaanu soo iibsanay oo kale oo lagu talagalay in cilmi baaristii horumarinta lagu sameeyo waxay ka mid yahay 30 ariya 7 geela iyo 7 lo ah xarunta waxaa la yactiray dhismayaashii oo dhan xafiisyada waxaa la qalabeeyay hoygii dadku seexanayeen xaruntan imika waxay awoodaa habeenkii inay seexdaan 50 qof oo lagu tababaraya inay seexdaan ayaa waxa dhameystiran hoygii iyo cuntadii iyo waxba agab ku dhameystiran yahay waxaa noo yimi oo kale oo sanadkan aanu helay gaadhigii caafimaadka xoolaha oo qalabkiisu u dhameystiran yahay asaguna hadda uu hawl galay waxaa sidoo kale riig oo fadhiistay baa mashruuca SDF dan laga kiciyo laga ribeergareeyay waxaanu la tababaray sanadkan tuulooyinka 8 tuulo oo ku wareegsan xaruntan aroori iyo xaaxi 9 ka tuulo ayaa wax loo xoolo dhaqato beeraleyda loo tababaray inay calafkii soo saaraan iyo xoolahaasi u wanaagsanay ay xilliga abaarta ay badbaadin lahaayeen waxaanu sameynay 2 cilmi baadhisood baanu sameynay oo dhawaan la soo publish gareyn karo waxaanu tijaabinay 11 sidoo kala duwan baanu tijaabinay oo aan rabnay inaan ku ugu wanaagsanay dadku beeran karaan aanu ka qaadano xarunta imika waxay u dhameystiran tahay inay ugu adeegto bulshada caafimaadka xoolaha iyo calafka xoolaha bay ugu adeegto